xilli xaalad bini'aadanimo aad u daran ay ka taagan tahay gobolka Gado waxaa meelo badan oo caalamka ka socda gurmadyo kala duwan oo jaaliyaduhu ay sameynayaan Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ugu badan ay ku nool yihiin waxaa jira dad iskood isku hawlay inay u gurmadaan dadkaasi waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha webiyada iyo roobabka ku dhuftay gobolka Gado waxayna sameeyeen dadaalo ay ku gaarayaan Soomaalida Columbus si looga qaado dhaqaale gurmadaha degdega asbici hore waxay sameeyeen kulan dhaqaale aruurin ah oo lagu dhawaaqay in dadku ay ku deeqeen $4,000 taas oo guddi loo xil saaray soo xareynteeda waxa asbuuci labaad socda dhaqaalaha laga aruurinay ganacsatada iyo xarumaha lagu kulmay ee suuqyadu ka mid yihiin kooxdan dhalinyarada oo isugu jira gabdho iyo wiilal waxay isku dhaarsadeen in waqtigooda ay ugu deeqaan walaalahood isla markaana xanuunka ay kula qaybsadaan gurmaday dadka ugu dhaxgalaan isla markaana dhaqaale ku gaarsiiyaan waxayna sheegeen in marka ugu horeyso gurmadkaasi uu bixi doono maalmaha nagu soo aadan ay noqon doonto mid dad badan ay ku gaaraan xilli ay ku guda jiraan dhaqaale aruurintooda ayaanu kula kulanay mid ka mid ah suuqyada Soomaalida Columbus waxaana dareenkooda ka qabanay hawlwadeenada iyo dadka samafalayaasha oo si wada jir u muujinayay sida uga walacsan yihiin xaaladda jirta Soomaaliya oo idil ayay roobabka iyo fatahaaduhu saameyn xoogan ku yeesheen laakiin waxaa muuqata saameynta gobolka Gado inay tahay mid ugu daran kadib markii gabi ahaanba ay dumeen 4 bundo oo halboolo u ahayd isku socodka shacabka magaalooyin ka mid ah gobolka Gadana biyuhu ay liqeen waa aniga Shariif Saciid Cagmadhige waxaan galabta halka u joognaa bulshadeena Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio inaan si wada jir uga qayb qaadano caawinta iyo maaragtay garab istaaga dadka walaalaheena ku waxyeeloobay daadadka iyo duufaanaha daadadka iyo biyaha ku fatahay gaar ahaan gobolka Gado oo aynu ka wada warqabno walaalayaal si aad iyo aad inay duufaan biyuhu ay u waxyeeleeyeen sida ognahay dhammaan dalkoo dhan dhibaatada ka dhacday laakiin waxa ugu daran gobolka Gado marka waxaan laga codsanayaa ama ka codsanaynaa dadkeena Soomaaliyeed meel aan joognaba si gaar ah magaalada Columbus aan galabta joogno in caawino oo garab istaagno oo si deeqsinimo leh oo ehelnimo leh aynu u garab istaagno oo u caawino baa laga codsanayaa waxa laga yaabaa walaalayaal in dad badan oo ina kamid ah inaynu meel qurux badan caruurteena iyo inaguba aynu joogno laakiin qof walaalkeena inay maanta caruurtiisa ay banaanka joogaan guryahoodii daad qaadeen masaska iyo bahalada khatar u yihiin marka si deeqsinimo leh oo ehelnimo leh waxa la idinka codsanayaa oo dadka waxgaradka idinka codsanaya walaalayaal inayna arintaas u istaagno oo aynu garab istaagno dadkeena una duceyno ilaahay waxaan ka baryaynaa abaaraha iyo duufaanaha iyo colaadaha ilaahay inuu ka dulqaado aad ba u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi meeshan maanta waxaan isugu nimid inaan maartay u gurmano dadka Soomaaliyeed oo ay biyuhu qaadeen oo webiyaashii iyo buundooyinkii iyo adeegii bulshada ay ka go'een marka waxaan rabnaa qof kasta Soomaali ah oo degan magaalada Columbus inuu ka qayb qaato gurmadkaas iyo taakuleynta dadkaas maartay baaba'ay iyo buundooyinkaas go'ay iyo dadkaas buuraha dushooda saaran biyuhu la tageen qof kasta marka waxa weeye ma jirto in anagu is caawino iskaashano gacmaha is qabsano isku tashanaa la rabaa Soomaalidu waa is caawisaa waa inaan is caawinaa weeye oo dadkanaga bacdama anagu aan haysano nabad iyo nolol iyo maartay caafimaad iyo hooy aan haysano dad waxaa jira walaalaheena oo intaba maanta haysan oo geedaha korkooda saaran oo biyo ay la tageen oo waxay ku adeegan lahaayeen iyo caruurtii iyo maatadiiba ay biyo la tageen sidaa darteed waa in dadka aan u gurmano waa inaan isu naxariisano ilaahay wuxuu yiri marka adinku isu naxariisataan maan anna idin naxariisanaya marka waxaan rabnaa dadkaas qof walba inaad ka qayb qaadato taakulada iyo gurmadka loo sameeyo dadkaas walaalaha aad baa u mahadsantihiin waana maartay in ka sugeynaa deeqdiina iyo wax ka qabadkaas diyaarleed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka gurmadka sameynaya oo hawshan abaabulaya horta qeyr Allah siiyo waa hawl emergency ah way dadaalayaan waxaana jeclaan lahaa dadka ehelka u ah ama Soomaalida oo halkan ku nool dadka muslimiinta muxsiniinta ah inay qayb weyn ka qaataan maanta meel lagu kala harin ma joogto waa aragnaa dadkeen wax ku dhacay guud ahaan Soomaaliya oo dhan qaybaha waliba dhinaca webiga oo dhulka Gado iyo Luuq iyo Baar Dheere qaasatan oo dib xoog leh ka jiro oo sida aan arkayna TV-yada iyo social media waxyaalaha meeshaas ka jira ay aad u ballaaran tahay
marka walaalayaal waxaan leenahay qof walbana wuxuu bixin karana ha bixiyo qofkii aad ka gaari karto oo kale aad ka soo qaadi karto wixii tabarucana ka soo qaad qof walba waxa laga rabaa shaqo iyo waajib nasaaran qof walba inuu sabaartay dadaal baa rabaa dadkaas u gurmano dadkan hawsha hadda wada oo hadda maanta arkaynana waa u hambalyeynaa khayr Allah siiyo ayagana jazakallah waa mahadsan yihiin khiyaartu magaalada Columbus Ohio dadka waxaad moodaa inay kaceen oo ay shaqaynayaan mar waxa jirto ay waajib noqoto shaqadu markii la qabanayo ay waajib noqoto ayaa jirto markii qofka muslimka ah dhibaato ay ku dhacdo oo sidaan oo kale ay noqoto qof kasto muslim ah waxa fuulahayo waajib waayo biyihiiba caruurihii bay la tageen waxay dhaafeen malaha guriyihii bay la tageen wax badbaaday baa iska yar ummadii baa meesha ku dhamaanayso waa waajib marka qofka muslimka ah inuu istaago oo wixii uu qaban karo uu qabto waxaan u ducaynaynaa dadka muslimiinta ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala qof kasta oo muslim ahi sadaqadan la baxa ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaankiisa xasanaadka inuu saaro dadka ilaahayna dad muslixiina ayuu u sameeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muslixiinmu ugu talagalay dadka muslixiinta ahi way shaqaynayaan dadka muxsiniinta ana way bixinayaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ama aan weydiisanaynaa meel kasta joogaan in ay u istaagaan dad deeqsiyaala dadka Soomaaliyeed waa la og yahay waxay caan ku yihiin muslimiinta inay u gurmadaan inay isu gurmadaan bay caan ku yihiin meel kasta joogaan deeqsiyaashu waa kuwa aad baad u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد حسين إسماعيل بسم الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى waxaan dadka Soomaaliyeed ku boorinayaa dhibaatada dhacday ummadda Soomaaliyeed inay ka caawiyaan oo ka mid noqdaan dadka muslimiinta ah oo arinta ka qayb qaadanaya qof walba oo Soomaaliya meel kasta uu joogo arintan maalin bay qabsanaysaa marka waxa la rabaa arintaas inay dadka wada midayso oo meel looga soo wada jeensado waa mahadsantii بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهرين دتك الصوماليات كرامة له شرفت بدن وحنوقع مهدناقينا أنت تبرعات كالسمايسي قرب استاجي ولا له هذا دباتيسن وحنوقعنا هجودها الصومالية ما أنت دعاتكم إني وحي الليان بس قبل كجدو وحوكجد سعين هدلك أنت سكلة بوندوين كي كابها اسكوحر هي هدلك أنت سكلة قبلك أيها ماشى كبحيو بيوها عقاتين sidoo kale magaalada la yiraahdo Buurdhuuba ayaa noqotay meel lama degaan oo gabigeedba biyo ay xaaqeen marka waa marxalad adag runtii gobolka waxa uu ku jira iyadoo hore ula daala dhacay arrimaha amniga iyo maxaa la yiraahdaa dibkii hore u haystay gobolka ayay tan ugu sii darmatay marka dadka Soomaaliyeed muslimiinta waxaan u leenahay walaalayaal maanta waa maalintii isgarab istaaga waa maalintii isu gurmadka waa maalintii isu hiilka naftiina ka qaado naftiina u qaada garab istaaga walaalihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalaha wuxuuda ku tabarucayne waxaan u ballan qaadaynaa gacan abniga inay galaan dad badan baa ka walaacsan arrimahaas insha Allah wixii dadaal ah naguma yiro waxaanu gaarsiinaynaa dadkaas u baahan maxaa la yiraahdaa gurmadka aad baxsateen ayaanu ku simi doonaa dabcan sidoo kale buundooyinkaas ayaan u taaganahay burburay inaan meesha ku soo celino aanu dhisno dhaqaalaha aanu ku dhisayna dabcan waa kaalmada ummadda Soomaaliyeed ee isku tashigeeda guliga gobonimo ayaan idin rajaynayaa sidoo dhantiin Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galabta waxaan u istaagnay inaan u gurmano oo lacag aruurino masiibada ka dhacday gobolka Gado qaasatan magaalooyinka webigu maro Jubba sida Baardheere Doolow Buurdhuubo iyo degmada Luuq dhammaan dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo dhammaan dadka Mareykanka jooga waxaan ku codsanaynaa inay ka qayb qaataan si mug leh gurmadka dadka dhibaataysan meesha waxa ka dhacday masiibo aad iyo aad u weyn baa ka dhacday buundooyinkii laba buundo hadda waa la hubaa dhulkay galeen dadkii totally labada magaalo ee Baardheere iyo Buurdhuubo biya qaaday klibiyada waad aragteen Facebook waa ku aragteen meel walba ku aragteen
biyaa qaaday guryihii way ka sara mareen doon baa lagu marahayaa marka walaalayaal dhammaan waxaan ku baaqayaa inaad ka qayb qaadataan gurmadkaas oo aad u istaagtaan qof walba wuxuu baxsaday ayuu aakhiro iyo adduunkaba helayaa sharaf baad adduunka ku haysataa aakharana insha Allah way kaaga horeysaa fadlan u gurmada waa mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan aad iyo aad baan u salaamahayaa dhallinyarada iyo odayaasha iyo waxgaradka aruurinaya dhaqaalaha biyabaxa ka dhacay haddii ilaahay ku rooyahay koonfurta Soomaaliya waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa wariya deeqa oo ayaduna qayb libax ka qaadatay xagga duubista iyo xagga haddii ilaahay ku rooyahay baahintaba intaa ka bacdi waxa weeye dhibaatada waanu wada aragnaa masiibo rabbaaniyo ilaahay keenay weeye Soomaaliduna markii saas oo kale wuxuu dhacaan waa isu gurman jireen waa isgacan qaban jireen haddii ilaahay ku rooyahay waa isu istaagi jireen waxaanu ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan ummadda Soomaaliyeed inay u gurmadaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan masiibadaas rabbaaniga oo ilaahay keenay bismillaahir rahmaanir rahiim awalan ilaahay ayaa mahad leh bacdallah waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo wariya deeqa oo runtii intii barnaamijkan fatahaada gudihii dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gado aad iyo aad u ololeynaysay iyo maartay warbaahinteeda aad baa ugu mahad celinayaa inta ka bacdi dhalinyarada aad ka u dadaalaysa gurmadkan wada ayaguna aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku baaqaynaa halkan uga baaqaynaa dhammaan community-ga dadka Soomaalida gobolkan Ohio gaar ahaan magaalada Columbus inay gurmadka si lixaad looga qayb qaataan way u jeedaan qofku maqaamka maanta dadkaasi joogaan biyuhu qaadeen qofku markuu asagu isgeeyo wuxuu dareemi karaa xanuunka ay leedahay ilmahaagii hantidaadii naftaadii wax walba oo sidaas noqday gurigaagii oo biyo ka buuxaan carruurtaadii oo biyo qaadeen maalkaagii oo baaba'ay markaad isgeyso baad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan sidoo kale waxaan musiibada waa wax ilaahay keenay waan wax dhammaan doona si weyn waxa indhahanagu u hayaan dadka mas'uuliyiinta oo meel kastaba jooga hadday maartay dawlad federaal yihiin hadday kuwa gobolka yihiin si weyn baa indhahanagu u hayaan adduunkuna wixii nool waa la dambaynayaa waana la xisaabtamayaa cid walba mas'uuliyadda ay leedahayna kula xisaabtami doonaa community-gana waxaan faraynaa dadaalka in la jibaaro aad iyo aadna waa mahadsantiin salaamu alaykum assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaamayaa TV-ga noo yimid Soomaaliyeed waan salaamayaa Sona Production wayna mahadsantahay sida uga qayb qaadanayso arrimaha jira iyo gurmadka walaalahan Soomaaliyeed ee ku fataheen webiyaasha ay uga qayb qaadatay ummadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio waxaan leeyahay dhammaantiin walaalayaal ka qayb qaata waa wax kulligan waa faa'iido noo wada gurmadna noo wada ah annaka hadii Ilaahay naga soo badbaadiyay dhibaatada iyo waxyaalaha hadda maanta ummadda Soomaaliyeed haysta oo nimid wadanabada dhaqaalana aan ku haysano dhammaantiin waxaan leeyahay walaalayaal arrinta laga qayb qaato wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamaynaa dhammaan Soomaalida ku nool Columbus Ohio nawaaxigeeda waxaan idin sheegaynaa inaan ku jirno qabaqaabadii dhibaatada ka jirta gobolka Gado fadlan ka qayb qaado wax alla waxaad awoodid ku darso waxaan halkan ku soo bandhigaynaa in meelaha ama mataqaana lagu soo dirayo seelka iyo account numberka iyo telefoonka lagu soo dirayo fadlan ka qayb qaado waa dhibaatada jirta ku digood waxaan rabnaa inaan si wada jir uga qayb qaadano fadlan ka qayb qaado shaashada ayaad ka arki doontaa waxa aad lagu soo celin macluumaadka lagu soo diri doonaa shaashada ka arki doontaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo deeqa walaasheen oo ka socota Ohio Somali TV also telefishinka qaranka deeqa aad baad ugu mahadsantahay si wanaagsan oo mar walba aad ugu taagan tahay wax ka qabadka iyo garab istaagga ummadda Soomaaliyeed khaasatan state of Ohio thank you very much walaasheen deeqo walaalayaal dhammaan raggan garbahayga taagan iyo khiyaarta kale oo magaalada ka shaqeynaysa oo aan operation ka wada shaqeeyno saawada ogtihiin waxaan u taaganahay arrimaha fatahaadaha oo xaalada aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maaragtay uga naxeen ama maaragtay laba oran karo xaaladii ugu qatarsanayd oo ebid la soo maro baa dadka dhammaan ay ku wada tilmaameen meel fiican bay maraysaa dhammaan waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed kuwa state of Ohio degan iyo kuwa kale oo adduunka dacaladiisa ku noolba inay si wanaagsan oo baaxad leh ay uga wada qayb qaataan dadka aad arkaysaan waa dadka ka shaqeynaya ama guddigaba
garabkayga taagan arrimahaas maaragtay ku hawlan dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay please garab istaaga arrimaha ka taagan gobolka Gado. Thank you. iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo 2 kuwa sare ah waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka. ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn. hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. barnaamijyadeena Robert School waa hal abuuro ka dheeraada fasalada. deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare. waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.